haddii beri dagaal cusub ka qarxo meel kasta oo dunida ah ayaa hubka siinaya dalalka dagaalamaya yaa sameeya diyaaradaha dagaalka ee malaayiinta dollar ku fadhiya yaa iibiya taangiyada gantaalada iyo maraakiibta awoodda leh hal dal ayaa keligiis gacanta ku haya in ka badan kalabar suuqa hubka adduunka laakiin waxaa jira 9 dal oo kale oo si qarsoodiha u qaabeeya awoodda militariga dunida maanta waxaan ogaan doonnaa 10 dal ee ugu dhoofinta badan hubka dunida iyo sida ay ganacsiga u saameeyaan siyaasadda caalamka kusoo dhawaada channelka waa anigoo ah Amiirka Waara haddii aad xiiseynayso arrimaha dunida taariikhda iyo siraha awoodaha waaweyn subscribe saar like gare oo nala soco waxaan ku bilaabeynaa Spain inkastoo aysan dad badani ka fikirin marka laga hadlayo hubka haddana Spain waxay si weyn uga qayb qaadataa mashaariicda militariga Yurub waxay caan ku tahay sameynta maraakiibta dagaalka gaadiidka gaashaaman iyo diyaaradaha militariga ee wadajirka Yurub dhoofinta hubkeeda waxay si gaar ah u kordhay tan iyo markii amniga Yurub uu galay marxalad cusub Kuuriyada Koonfureed ayaa noqotay xidig cusub oo ka soo baxday suuqa hubka waxay samaysaa taangiyada K2 madaafiicda K9 iyo diyaaradaha FA50 Poland ayaa noqotay macaamiisheeda ugu weyn taas oo muujinaysa sida ay Seoul u noqotay awood cusub oo militariga adduunka Talyaanigu wuxuu caan ku yahay diyaaradaha qumaatiga u kaca maraakiibta dagaalka ee nidaamyada difaaca warshadaha difaaca Talyaanigu waxay xiriir adag la leeyihiin dalalka bariga dhexe ee Yurub boqortooyada midowday waxay weli ka mid tahay quwadaha hubka ee dunida waxay samaysaa matoorada diyaaradaha dagaalka maraakiibta iyo nidaamyo tiknoolajiyad sare leh ganacsigeeda hubka wuxuu ka turjumayaa saameynta siyaasadeed ee London ee dunida Israa'iil waxay caan ku tahay tiknoolajiyadda militariga darooniyada nidaamyada difaaca gantaalada ee qalabka sirdoonka ayaa ka dhigaya mid ka mid ah dhoofiyaasha hubka ugu saameynta badan dunida Shiinaha wuxuu si degdeg ah ugu soo baxay suuqa hubka caalamiga ah Beijing waxay hub u dhoofisaa dalal badan oo Aasiya iyo Afrika ah qiimaha jaban iyo awoodda wax soo saarka ee weyn ayaa ka dhigaysa tartamo adag Jarmalka wuxuu ku takhasusay jugsiyada taangiyada iyo nidaamyada difaaca cirka hubkiisa waxaa lagu yaqaanaa tayo sare iyo tiknoolajiyad horumarsan Ruushka wuxuu muddo dheer ahaa dalka labaad ee dunida ugu dhoofinta badan hubka laakiin dagaalka Ukraine ayaa si weyn u saameeyay warshadihiisa difaaca baahida gudaha ee cunaqabataanka caalamiga ayaa yareeyay dhoofintiisa Faransiisku wuxuu galay kaalinta labaad ee adduunka diyaaradaha Rafale maraakiibta dagaalka ee qalabka difaaca ee casriga ayaa ka dhigay Paris qubad hub oo aad u weyn Hindiya Qatar iyo Imaaraadka Carabta ayaa ka mid ah macaamiisha ugu waaweyn boqorka aan muranka lahayn ee suuqa hubka waa Mareykanka wuxuu dhoofiyaa hub ka badan dal kasta oo kale isaga oo gaarsiiyay ku dhawaad 100 wadan diyaaradaha F-35 nidaamyada gantaalada ee tiknoolajiyadda militariga ee Mareykanka ayaa ka dhigaya awoodda koowaad ee hubka dunida hal xaqiiqo ayaa yaab leh daawad Mareykanka kaligiis ayaa gacanta ku haya in ka badan kalabar suuqa hubka caalamiga ah gunaanadka muuqaalka ganacsiga hubka ma aha oo kaliya lacag waa awood saameyn siyaasadeed iyo tartan lagu go'aamiyo cidda hogaaminaysa dunida inta ay sii kordhayaan xiisadaha juqraafi siyaasadeed waxay u muuqataa in tartanka hubku sii qaabeyn doono mustaqbalka caalamka su'aashu waxay tahay daawade haddii awooddu ku jirto cidda hubka samaysa ayaa dhab ahaantii xukuma dunida haddii aad ka heshay muuqaalkan ha iloobin like subscribe iyo share noogu reebqaalo adiga sidee kula tahay dalkee noqon doona boqorka cusub ee suuqa hubka 10 sano ee soo socda oo anigoo ah walaalkiina Amiirka Waara waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo kulanti dambe oo xiiso leh